sida mar walbaan aragno nin xaaskiisii guriga joogto haddana gabar kale casho siinayo gabar kale time geenayo gabar kale waqti gelinayo gabar kale hadal macaan xaaskiisa ay ka weysa gabar kale ku dhahayo jacayl oo dhanba iyo hadal macaan iyo wax kastaba banaanku ka raadinaya meesha uu xaaskiisa ka raadin lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaalahayga waa idin salaamay, waa walaashii Najmo MBR. halkaad iga daawanaysaana waa MBR qurux dumar. kusoo dhawo channelkeena gacmo furan qalbi furan iyo saafi ah. anigoona maaragtay videoga idinku badinaynin ayaa waxaan jeclaystay inaan halkan oga soo hadlo qaladaadka ragga Soomaalidu ay leeyihiin. inta badan kulligood ma aha, sababana inuu gurigooda noqdo maaragtay guriga laga qalbi jabsan yahay ama mar walba booq iyo qayli ka dhex taagan yahay ama maaragtay jacayl iyo wanaag iyo farxad isan yaalin. waxyaabaha sababo inta badan majority-ga ragga ayaa sabab u ah. sababtay sabab ugu yihiin waxay tahay kudigoodu ma aha, inta qaar sababtay sabab ugu yihiin waxay tahay halkan ayaa rabaa inaan ka soo tiriyo insha Allah. kuwaad waxa waaye wiilasha Soomaali inta badan problemka ay qabaan waxa waaye cunug yar oo maanta 12 jir hadaad weydiiso dhaxdeed war heede ma qaal laga yaabaa xaasoo darta inaad guursato, wuxuu ku leeyahay 4 waa 12 jirkoodii qalbigoodii iyo maskaxdoodii iyo memorygoodii waxay ku xireen inay 4 guursadaan. waa qodobka ugu koowaad ee dhibaatada iyo dhibka ka imaanayo by the time ninkan uu gabadhan wado. waa qodobka koowaad. qodobka labaad, wiilka mar walba inuu jecel yahay inuu jacaylka iyo farxadda inuu banaanka ka raadiyo. sida inta badan aan aragno rag xaasas qabo, xaasaskoodii guriga jooga haddana gabdho kale casho geynayo, gabdho kale waqti siinayo. sida mar walbaan aragno nin xaaskiisii guriga joogto haddana gabar kale casho siinayo, gabar kale time geenayo, gabar kale waqti gelinayo, gabar kale hadal macaan xaaskiisa ay ka weysa gabar kale ku dhahayo. jacayl oo dhanba iyo hadal macaan iyo wax kastaba banaanku ka raadinaya meesha uu xaaskiisa ka raadin lahaa. waa qodobkii labaad. qodobka saddexaad waxay tahay markuu ninka gurigiisa imaado inuu yaqaano gurigaas inuu biilasha bixiyo. biilasha hadduu bixiyo cuntada gurigana uu keeno, ilmana la iska dhalo, inayba nolosha u dhammaystiran tahay. that's what they believe. taas iyadana macquul gal maaha, sababtoo ah labadan qof oo wada nool shalay waxay isku soo guursadeen. gabadha waxay kusoo guursatay shalay hadal macaan, ixtiraam, respect, jacayl iyo baryo. xukumaada soo guursanin, adoo sanka taagay maada soo guursanin. markay hadda xaaskaaga noqotay iyo gurigaaga joogto, gabadha dhagax iskumay bedelin. still qalbigii shalay wanaagga rabay maanta wuu ku jiraa. naxariistii shalay u baahneed still maanta way u baahan tahay. maanta weli ay noqotay hooyo, ay noqotay xaas, oy ilmahaagii tahay hooyadood, oy maanta tahay xaaskaagii. way u baahan tahay, sababtoo ah guriga hooyada hadday caafimaad qabto reerka dhan way caafimaad qabaan. hadday hooyadu faraxsan tahay reerka dhan wuu faraxsan yahay. hadday hooyadu faraxsaneen reerka dhan wuu faraxsano. hadday hooyadu xanuunsan tahay reerka dhan wuu xanuunsan yahay. marka waa inaad ogaatid libinta guriga ay hooyadu ku leedahay. qodobka afraad waxaa waaye, qodobka afraad waa soo sheegay. qodobka afraad oo kale waxaa waaye ragga Soomaalidu inta badan ma aha, inta kulligood ma aha, inta badan waxay gabadhu ilmaha markay dhasho inay ilmaha inay hayso oo dheebarada ka badsho, cuntada siiso, u qabayso, wax u qabato, iyo inay guriga nadiifiso, cuntadana ka kariso, dharkana ka dhaqdo, weelkana ka xadho. inay aaminsan yihiin inay tahay waajibaad iyada saaran. laakiin ma aaminsano arrintan iyada inay tahay gabadhan asxaan iyo wanaag iyo ixtiraam iyo soo jiidasho asaga inay u sameynayso ee dhexdooda islaax ka dhalinayso inay tahay. ma aaminsano. waxay u maleynayaan inay tahay waajibaad uu Ilaahay korka ka saaray. okay, gabadhi markaad arrimahaas oo dhan aad sameysaan oo qalbiga ka soo jabto oo guriga imaato oo maartay hadal macaan ka aweyso, ixtiraam ka aweyso, respect ka aweyso, caabitaan ay ka aweyso, oo koobkaas sii jeedo hadday xanuunsan tahay xitaa aadan usoo qabanin, walaala macaane. by the time gabadha ay seexanayso waa she's very tired. waa aad iyo aad bay u daalan tahay.
waxaa laga yaabaa inay wayba u daalan tahay baanaa ku leh waa gabar physically emotionally u daalan weli gabdhaha qaar waxay ka shaqeeyaan maraykanka oo kale 8 hourna way soo shaqeeyaan gurina way ka shaqeeyaan qof aad saa ula dhaqmaysid ka waran haddaad dhahdid waxaan rabaa inay ii dhoola cadayso waxaan rabaa inay cunto macaan i siiso waxaan rabaa inay hadal macaan i dhahdo waxaan rabaa maaragtay inay si fiican ii soo dhaweyso oo raalli ii noqoto ka waran waa adigoo dhahay waxaan rabaa beer aad iyo aad u qurux badan inaan miraheeda gurto haddana biyo ma siinayo ta iyada macquul gal ma aha wiilasha qaar haddaa wiilasha ku jirtid iska dhis arrinta iyada. Assalaamu calaykum, peace and love.